بسم الله الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليها كحجين كتليها قيبتا تليها جوتدا تليها عيدة كدراويش تقول شو الله سه كسمة تليها قيبتا بوليس كقول شو الله صارنا تليها كحجين كقيبتا بوليس كقول شو الله سه تليها أوركا صدني كواد الدقمة أفجوية ميليتريكا أبندولها أوركا صدني كواد رجعنا ولا نقول عصب ومحمد كوري إسماعيل تليه أبندولي جوتدا كورنل حسن هذا حش قتاتو رتي قدوم كحين كريمها قبل كا أرميها بالشدة قدوميها دقمة أفجوية قدوم كحين كريمها بالشدة دقمة أفجوية قدوم كحين كريمها مالية دقمة أفجوية xogeyaha oo ninka noogu duqsan experience badan degmada Afgooye Mr James bahda saxaafada ugu horeeyo Jerry ama maxaan ku raada ilcade iyo wariyaasha kale saraakiil xigeenada salaamu alaykum waraxmatullaahi taliyaha saldhigga booliska degmada Afgooye Ali Rooble uma jeedi meeshan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh war la qaba xiisa ma lahan waxaan u nimid maanta inaan la feesteyno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida degmada Afgooye haddaanu nahay maamulka gobolka iyo kan degmadaba waxaan go'aan ku gaarnay inaan la qadayno ciidankeena wax weyn maaha neefkaas geel aan keenay hasha iyo bariiskaas iyo cabitaanka waxaas oo dhan waxaan ugu talagalnay ciidanka dhiirigelin waa macnaha in ciidankii annagana waxba kala ahayn sida dareeskooda aan u soo gashtay in maxaan ku ayagana inay maamul u yihiin salaliga marka far waxa la far kaligeeda fool ma dhaqdo salaliga marka waxaan rabnaa in la isku duubnaado ilka wada jir bay wax ku gooyaan salaliga marka waxaan rabnaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haday booliis yihiin haday daraawiish yihiin haday military yihiin haday nabad sugid yihiin haday asluub yihiin waxa la isku dhahaa ciidamada qalabka sida salaliga marka waxa la rabaa ciidamada walaalaheena qaasatan oo halka la soo dejiyay oo AMISOM halka kala wareegay xeradan waa tusaale fiican wixii shalay ay dheeglay bariir ka dhacay tusaale fiican ay ciidanka in ciidamada Soomaaliya isdifaaci karaan isku filnaanshan aan gaarnay haddaanu nahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed oo hadda maxaa ku raacay ciidanka maamulka gobolka salaliga marka waxaan leenahay taliyaha ururka ee halkan AMISOM kala wareegay taliya maxamed gurey iyo banduulis Ismaaciil waxaan leenahay taliyaha guutada maxaan ku raada oo ururku ka yimid taliya General Xasan Jaamici iyo maxaan ku raada taliya ku-xigeenka qaybta maxaan ku raada 12 maxaan ku raada Abriil Colonel Xasan General Xasan Faqash ragii maxaan ku raada aan qaanay oo soo dagaalamay argixisada al-shabaab darsi u dhigay waxa ugu dambeeyay General Xasan Jaamici oo maxaan ku raada xerada Saliine Colonel Xasan Faqash iyo Colonel Xasan Jaamici waxaan naqaana taariikhdiisa taliyaha guutada in ceel Saliini uu ka deganaa AMISOM u dhaweyn AMISOM ugu dhow ay degantahay 60 kilometer 67 iyo lambar konton asaga Saliini wuxuu deganaa deexda dhanaana hoosteeda kaligiisa intaas sana shabaab darsi u dhigay haddana in Afgooy la keeno lagu abaalmariyo waxa keenay darsigu shabaabku dhigay waxa leeyahay yaa lagu aamini kara ammaanka degmada Afgooye oo xudun u ah isku xirka maxaa ku geeska Afrika oo dhan raashinkii ka soo dega am badeecadii ka soo degtaa dekada Muqdisho halkan ay martay waxa u socotaa soo Suudaan Ethiopia Kenya Bay Bakool Gedo ilaa iyo maxaa gobolada Soomaaliya halkan loo maraa ilaa iyo maxaa meesha la jiri Hiiraan salaliga marka waxaan leenahay in maanta lagu aamino ciidamada Soomaaliya AMISOM kala wareegaan sharaf iyo karaamay noo tahay annagana ina abaal marino habeen la cashayno subaxii la quraacno maalintii la qadayno annagana maxaan ku raahdaa waa waajibna saaran waajibaadkeeni annaga aan ka soo baxnay salaligeeda marka taliyaal waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantiin inta xeradan la idinku wareejiyo 10 cashaad maraysaan 10 casho gudoomiyaha degmada Aweys Buulalow wuxuu yiri wax biideys lagama arkin ciidanka intay joogeen shacabka maxaan ku raahdaa ra'yigooda marka aruurinay ciidan ka wanaagsan oo military oo soo maray maxaan ku raahdaa urur ka wanaagsan nama soo marnay yiraahdeen marka salaligeeda waa amaanantiin sababtoo ah xeradan oo AMISOM oo 15 sano wadanka joogtay 2007 baydhabo ay ka soo degeen AMISOM waagii dawladii Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii hore ilaa maanta 15 sano dhowr 10 sano laga jooga
in maanta maxaan ku yiraahdaa ciidankii amisom ugu horeeyay Soomaaliya ka baxaya ama maxaan ku yiraahdaa oo Soomaaliya lagu wareejinayo xerada ka baxaan afgooy ugu horeysay in ciidankaas lagu sharfo oo maxaan ku yiraahdaa qaybta 12 Abriil maxaan ku yiraahdaa guutada maxaan ku yiraahdaa guutada labaad guutada koowaad ururka 31 oo lagu sharfo la yiraahdo maanta amisom dadkii kala wareegi lahaa Soomaaliya amniga ciidamada ugu horeeyay Soomaaliya waa guutadaas in la yiraahdo sharafina u soo haytorto guutadaas waxaana keenay taliyaha guutadaana keenay taliyaha qaybta keenay General Tawane taliyaha qaybta 12 Abriil taliyaha ku-xigeenka maxaa Korneel Xasan Faqash iyo maxaa ku taliyaha guutada maxaa ku yiraahdaa Korneel Xasan Jaamici ragii aan soo dagaal galnay way Korneel Xasan Faqash wuxuu aan jiray ragii qoryoolay nala qabtay wuxuu ahaa taliyaha guutada shanaad ayuu ahaa markii qoryoolay iyo shalambuud dhulkaan ilaa General aan qabanayni waxaan ogahay Korneel Xasan Faqash geesinimadiisa ilaa uu naxariyo General Goban leh oo sanad taliyaha guutada saddexaad ahaa markii laamiga maxaan ku yiraahdaa nagala on xoogo caqabad kala kulanay buudooyinkii mashallah iyo waagaadi iyo jeero gaawrow kadibna Korneel Xasan Faqash taliyaha guutada shanaad waxaan ku amarnay inuu maro oo jidka tortoro ka yimaada buundada Degwariiri Janaal uu ka gudbay Degwariiri uu maray hanti wadaag uu maray meelira Bansham uu maray Tugaarey ilaa Garas Jareed jidka tortoro ka yimaada ayuu qoryoolay ka soo galay halkaan uu qabtay 2014 ahayd bishii Abriil dagaalkaas maxaa ku qoryoolay ku qabanaynay ninka argagixisada u weynaa amiirkii ayaa banduul ahaa oo hogaaminayay webiga sidaan oo kale biima leh markaas Abriil maxaa goor webiga ayuu ku dhaxlugeen Axmed Godane asaga banduul ahaa ciidanka asaga hogaaminayay al-shabaab halkaas uu qabtay degmada ugu horeey maxaa goor ana asaga koraan ka soo wareegnay labadeena maxaa goor wada qabanay amisom maxaa goor waxaan ku dhaafnay laamiga salee markii waxaan leenahay waa rag taariikh leh waa Shabeellaha Korneel Xasan Jaamici ragii maxaan ku yiraahdaa ilaa iyo Baraawi ilaa iyo maxaa ku Tuwaare ilaa Sablaal ilaa dhulkaas oo dhan asla qabanay waa oo aad ogeeday maxaa wiligiisba amisom maxaa goor ma dhex degin Korneel Xasan Jaamici banaanku dega asaga ciidankiisa haddana sharafi karaamay noo tahay taliyaha ururka oo haddana dhalinyaro ah aad u jeedaan oo maxaan ku yiraahdaa nin aftahana oo maxaan ku yiraahdaa ma sha Allah taliyaha maxaan ku yiraahdaa Maxamed Gurey Banduuliis Ismaaciil rag waad u jeedaan oo Soomaaliyeed waxaan leenahay in la wada shaqeeyo la isku xirnaado shacabka la badbaadiyo dhibka maxaan ku yiraahdaa iyo nimanka argixisada cidiijar loo suubiyo roondo la suubiyo shabaab iyo meenaba hal shay lagu bixiyaa shabaab iyo meenaba luga lagu bixiyaa miino haddaad lugayso waad arkaysaa carradii lagu duugay meeshii la qoday meeshii la geliyay shacabka kuu sheegay waad ka bixinaysaa haddaad soconaa meed arkaysaa miino shabaabna maxaa roonda lagu bixiyaa markaad roondaysid shabaab adduunka roonda ugu nacbiin ciidana inta soo maraa dil yiraahdo 100 kilomitir ay carraayeen marka salaalay marka insha Allah taala maanta waxaan u talagalnay in xafladaas qiimaha leh inaan ku wareejino neefkaas geel ah iyo hashaas iyo maxaan ku yiraahdaa cuntadaas inaan nagala wareegtaan oo ciidankeena ku sharafnay taliya inaan nagala wareegtaan aan jecelnahay insha Allah ma nagala wareegteen ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah ahay saas way ma sha Allah wahay deeqdan ay ugu keeneen ururkan iyo waxa guutada wahay sida sharafta badan leh ay noogu keeneen dhiishigelinta leh oo maaragta wanaag badan leh waa uga mahadnaqaynaa wahayahu war badan ma aqaan laakiin ma hay wax sida ay ugu wanaagsan tahay waana iga soo dhawaato maasantii maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada oo gudoomiyihii uu joogo iyo ku-xigeenadiisii saraakiisha ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ee halkan ku sugan military iyo police iyo wixii kale oo weheliya muxuu ahaa asluub wax nagala joogan horta booliiska ayaa mataqaana daraawiishtiisii iyo kuwii maamulka gobolka intaba u jooga baalka muxuu ahaa booliiskii gobolka intaba ku jooga horta waa salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaikum asalaam salaan kadib muhiimaddu waxay tahay in maamulkii degmada iyo kii gobolka iyo ciidankii oo isku faraxsan inay galabta halkan ay wada taagan yihiin xeradan maantana muxuu ahaa ay noo fidiyeen muxuu ahaa qadadan neefka geel ah oo halkan noo taagan iyo bariiskan iyo biyahan iyo wax ka badan oo horena ay noo siiyeen hadeerna ay noogu maqan yihiin horta waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana ka qaabilnaa waxa inta ku xiga gudoomiyuhu
wuxuu nooga yimid gudoomiyaha gobolka wuxuu nooga yimid muqdisho nooga yimid sida awdhiglo nooga yimid jacaylka oo ciidanka u qabo ayuu mataqaanaa noogu soo leexday oo uu maaragtay maantay noola xafladeynaya mana ahan wax hadda maanta uu bilaabay gudoomiyuhu maalintii xilkii ka horreeyay loo dhiibay maalinta halka dagaalku Afgooye ma soo gaarin halgankii oo ciidamada la bilaabo ilaa Baraawo ku tago timay isaga xira waxaan dhigi jirnay gudoomiyaha timaha ma xirtid maya meel bay leedahay Baraawo timay ku xira annaguna inta waa isla soconay oo geed iyo waxaan isla seexanaynay muxuu ah gudoomiyaha gobolku nin isla weyn maahan xiriyaha ciidanku wax ka seexda xiriyuhu nala seexan jiray geedaha hoostooda markaan joogno oo aan difaaciyada iyo duurka markaan ku jirno nala joogi jiray waxaan leenahay waa gobolkan nin u soo halgamay waqti badanna ku soo bixiyay runtii xaq badanna ku leh way waxaan rajaynaynaa haddana maadaama mar kale uu noo soo noqday in aan mataqaanaa annaguna ku farxi doono maadaama aan shaqadiisa naqaano oo uu maaragtay sidaan iyo si ka badanba oo ciidamada ula shaqeeyo waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa maamulka degmada garabkoodan taaganahay midka gobolka ilaan moogta asaga kugu matala degmada haddaan wanaajino adigana waa ku wanaajin marka garabkoodan taaganahay taladooda iyo tusaalahooda ayaan ku shaqeyn doonaa hadduu ilaahay idmo halkan urur baa noo degan guutada koowaad ka tirsan waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo amarna ay ku qabaan degmada nabadgelyadeeda waxay u joogaanba waa iyada iyo shaqada loo idmada inay qabtaan way la shaqeyn doonaan hadduu ilaahay idmo gudoomiyaha degmada annaga dhanna waa la shaqeyn doonaa guddiga amniga waa la shaqeyn doonaa hadduu ilaahay idmo shaqada koowaad oo aan leenahay waxay tahay waajibkii halkan ciidankii ka baxay uu lahay inaan horta marka koowaad aan gudano maadaama aan dad Soomaaliyeed nahay wiilashiina nahay haddana waxa noo dheeriyo midkii kale aad noo garataan in ay tahay inaan ku sii darno oo aan qabanno ayadana diyaarano hadduu ilaahay idmo waxaan leenahay idinkana waxaan idin leenahay waxaad uga tashataan wiilasha halkan jooga tuutaasita inay wiilashiina yihiin hadday faraxsanaadaan idin faraxsan yihiin hadday maaragtay murugeysnaadaan idinkeedin waa la murugeysantiin haddii mataqaana muxuu ahaa ii sheeg maanta wax soo gaaraan idinkeedin ka soo gaareen runtii waayo wiilka Soomaaliyeed ama raas Kamboona ka yimaad ama raas Caseer ka yimaad ee maanta oo dhigla ku dhintay ee wiilkeena daalimka ahayn waa ka wada murugeysana meel kasta aan joogno waa ka wada murugeysana ninka daalimka oo maanta mataqaana aan inta wax u sheegnay oo kor loola hadlay hoos loola hadlay oo la yiri war walaalaha way war waxaan Soomaaliya war waa dawladdaadi waa dadkaaga ee waxba ku qaadan waayay in la iska wada dhiciyo hadda xal aan ahayn malahan waxaan leeyahay haddaan sidan hadda maanta aan isku niyada u nahay aan isku niyad u ahaano waa ka guuleysanaynaa hadduu ilaahay awood u ogolaado ilaahayna dadka qulubtooda daalcanaya haddaan isku niyad noqono oo isku hal fakar noqono waa ka guuleysanaynaa shabaab intaasoo gooraan isagoo hor nimid goob dagaal aan isagoo hor nimid intaba waa ayaga ku jabayay meel ay guul naga rogmadeen ma jirto mararka qaar ay meelay xariye iyo soo galeen waa bini aadan waa rafanayaan laakiinse inta khasaare iyo jab gaartay cadad iyo xisaab midna ma laha hore ku jire aan gudoomiyaha ka hormarno soo warhayna qoryada waa qaban marka taas waa gudoomiyaha waa caadada gudoomiye xilli kulul aad ugu jira waa ku